fursadda adoo ka faa'iideysanay maanta xaggan maxaad ka odhanaysaa maanta waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan maasha allah way macaan bas allah kalmuto hayde insha allah ma ka dhimatay maasha allah gabadhaas hooyada ayuu ku shucday shadakiskana hayde السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كين سؤالات نوجا برتين شاشة الجيب لايف وسؤالين دين تيجي بشوين تريد جبوتي لا سعد ونكسن داود يلا السلام عليكم عليكم السلام مقعد ولا فاطمة كسر برنامج كسؤالها دين تأي صار يسو جيب لايف سؤال برا كويدو ديار وتاي وين سؤال شو حاورنا ساعة محا ومالنتين مالنت أوقف اللي جبادن سنة كأردن ما سنت صادق وسقف قش برنامج أيوة عثمان هذا فرح كسر جيب لايف يسؤاله يجي أنت سؤال شاس ديار موتاي وين سؤال شاس وحارة ساعة محي تهاي مالنت أوقف اللي جبادن سنة كأردن maalin baa musaabili weyn maalin tamaga ay gaashaysa amsa maalinta ay tahay taariikhiga masaxay wala jawaabta aad baa ma santa saad uga saqay assalaamu عليكم السلام ورحمة الله magacaaga walaal الواد علي هاشم ilwaad cali ku soo dhawow jiblaaf iyo su'aalaha dintaas su'aashaas ilwaad waxay oranaysaa muxuu yahay xukunka qofka aaminsan ilaahay iyo qofka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam diidan xukunka qofka ilaahay aaminsan balse nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam diidan waa xamayaan qofka yiri laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah oreyn qofku markuu yiraahdo xukunkiisu muxuu yahay ma garan karo garabayday ay aad ma santa walaasha ay walaasha qalina kulma sharaf ay tahay aad baniga leeyahay ka sharaf karaam walaal magacaaga salaaxadiin waxaad ku soo dhawaataa jib live maanta oo markuu horeysay ka soo muuqatid ku soo dhawo jib live su'aalihii diinta su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar ma u tahay diyaar ah su'aashaas waxaa odhanaysaa muxuu yahay xukunka qofka ilaahay aaminsan balse nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam diidan yani horta ahaan xukunka waxa waaye yani qolada diiday mushrikiin baa haye xukunkiisu waxa waaye shirkul asghar waaye shirkul akbar waaye marka ahaan ninka ilaahay rumaysan waaye yani nabiga rumaysaday waa gaal waaye muxuu ka baxayaa diidku ka dhex baxaya sababta baqafo jawaabtaas waad ku guulaysatay ninkaas sacab ayuu leeyahay aad baa u mahadsantahay ninkaas waxa uu mutaystay crédit 1000 francs waa kaas aad baa u mahadsantahay fursaddaas adoo ka faa'iideysanay maxaad odhan lahayd maanta jib live ku soo dhaw ku leeyahay si fiican waa daawadaa tiktok xitaa follow like waan saarano assalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga رقية ku soo dhawo jib live iyo su'aalihii diinta ruqya su'aal barbayna ku weydiiyo diyaar ma tahay ها way ku soo diyaarisay way su'aashaas waxa odhanaysaa maalinta waa maxay maalinta ugu fadliga badan sanadka oo dhan waxa weeyaan maalinta ugu fadli badan waa Ramadaanka maalinta ugu fadliga badan ramadaanku waa bil waa Jimcaha maya hay waxa maalin u gaara jirta ugu fadliga badan waxa weeyaan ciida u maleeya ciidee ciid al-fidri maya ciid al-adha ciid al-adha waaye aad baa u mahadsantahay waxaad ku guulaystay crédit hambalyo ma ku leeyahay adoo ka faa'iideysanay fursaddaas maxaad odhanaysaa waxaan oran lahaa in aaga laga sii wado ayaan oran lahaa xaggan ayaad ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa kow adiga labadeeda waalid saddexna dadkan duubayso afarna ismaaciil magelli maasha allah sacab ayay leedahay gabadhaas thank you waa kaas créditgeygii merci liibaan cilmi diyaar ma u tahay su'aalahan maanta ma isku soo diyaarisay ma isku soo adkaysay waayahay liibaan waxaad ii sheegtaa su'aashaas waa maxay faqriga sadaqada iyo zakada u dhexeeya zakada bisha Ramadaan baa la bixiyaa sadaqadana xilli kasta la bixiyaa waajib ma waa waajib zakada waajib anduu ninka qofka awoodi karayo zakada waajib mii zakada waajib anduu qofku karayo bisha Ramadaan anduu hayna dii
isagaa la siyaaba hay sadaqaduna waa xilli kastaa bixin karaysa waad ku guulaysatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay baqaabo baan ku leenahay sacab buu ninkaasi mutaystaa magacaas muxuu ah diiwaan liibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay saad uga soo qayb gashay barnaamijka idil ku soo dhawo barnaamijkeeni su'aalihii jiblayn su'aal baan rabaa inaan ku diyaar mu tahay diyaar baan yahay su'aashaas waxaa odhanaysaa ayuu ahaa qofkii ugu horreeyey qaatay islaamka qofkii ugu horreeyay islaamka qaatay wuxuu ahaa aadan mise waa ciise abubakar sadiiq abubakar sadiiq buu ahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa aad ku guulaysatay kredi idil fursadaad adoo ka faa'iidaysanay maanta xaggan maxaad ka odhanaysaa maanta waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan maasha allah macaan bas kalmato hayde maasha allah ma kaa dhimatay maasha allah gabadhaas hooyada ayuu ku shucday shadaanka iskanaar hayde asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magacaaga walaalo إذن idil ku soo dhawow idil barnaamijka su'aalaha diinta ay soo qabanqaabisay jib live su'aal baa rabaa idil inaa ku diyaar ma tahay فازي idilay waxaad ii sheegtaa waa maxay sababta loogu waajibay muslimiinta jihaadka sababta loogu waajibiyey muslimiinta jihaadka يعني minka jihaadku markii hore waqti xaadirkan ma jiray markii hore يعني iminka dawladaha waxa haysan jiray dad gaala يعني madaxyadu gaalay hayeen Soomaa marka debigi waxa laga oran jiray يعني markay diintu balaaratay waxa laga oran jiray diinta qaata haday diidaan waxa laga oranayay ama فيديو waxay markaan qabsano nacam يعني cashuur baad bixinaysaan oo xornimaad ku noolaanaysaan ampo aad bixinaysaan haday diidaan lacala ayaa ii sheeg يعني dagaalka lagu qaaday say hadaf ugu sareeyaa say diinta u balaarato ha u difaacaan ay u balaarato iyo naftooda diinta markay difaacaan naftoodana ay diintay difaacayaan daacadnimada naftooda ها waayahay intaasaa waxaa iskugu kaa darto aad iyo aad baad u mahadsan tahay idil baa magacayga ها idil aad iyo aad baad u mahadsan tahay saad uga soo qayb gashay barnaamijka waad ku guulaysatay adiga oo ka faa'iidaysanaya fursaddaas maanta halkan maxaad ku odhanaysaa runtii horta diinta barashadeedu waa meel sare waqti xaadirka dadku diinta waxuma arkaan waxaan dhalinta waqtigan aan konseyn siin lahaa diinta ha bartaan runtii qofku inuu diintiisa ka noqdo gariib oo wax aad u adag maanta maxaa ku konseynaysaa bulshada kaa dambaysa diinta barta khaasatan quraanka waayo quraanku isaga dadka wax waliba bara waxa la yiraahdaa ha iminka ilmahaaga waxa la yiri quraanka bar isaga quraanka wax waliba bari doonay markaas quraanka barta diintiina barta qofka quraanka duu barta wax waliba u fududaanaya runtii markaas diintiina barta su'aalaan sanna aad bi fiican xaqiiqatan khayr allah nisiyo dhamaantii wax ku guulaystay kredigaas ambalyo aad baad u mahadsantahay saad bulshadiinta uga faa'iidaysay maanta waad mahadsantahay merci à vous aussi daawadayaal xagga waxaad kala soo socoteen barnaamijkeeni su'aalaha diinta ay soo saartay shaashada jib live barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo ammaan allah